sheekhu isoo kaxeeyay waxa uu inay keen xafiiskiisa oo aad u qurux badan waxaana fadhiyay wiil qiyaastii da'diisa aan ku qiyaasay 20 jiro da ahaan waa groupka aniga iga weyn aniga markan waxaan jiraa 17 sano sheekhu waxa uu bilaabay inuu ila hadlo wuxuu markii hore ku bilaabay inuu aad ii amaano wuxuu igu yiri gabadhaydii Bushray waxa taa gabar aad u qiimo badan diinta aad ugu fiican aad aan u jecelahay qaaya badan quruxna Ilaahay siiyay deganaan iyo xasilooni dabeecaddeeduna aad u wanaagsan tahay waa ereydii wiilgii aan ku fikirahay inay hooyaday ama aabahay dhahan aad ayaan ugu bagay hadalkiisa isagoo sii wato wuxuu yiri gabadhaydii waxaan la xiriiray aabaha iyo hooyada labadaba ogolaasho dhameystiran waan ka helay waxaan aad u jeclaystay gabadhaydii inaan kugu daro wiilkan oo adeer aan u ahay waa ahludiin wanaagsan quraanka yaqaana aadna u fiican boqol damaanad aniga ka ah maadaama aad tahay gabar aan aad u jecelahay ilaahayna ha ku jeclaaday gabadhaydii waxaan ka codsanayaa in arrinta iga aqbasho oo aadan igu diidin wiilkan aad guursato gabadhaydii aad noqoto wuxuu intaas sii raaciyay wiilkan adeerka u ahay aabihiis wuu nool yahay waa walaalkay markii aan kugu daro walaalkay ayaan ku geey doonaa isaga ayaan gacanta kugu hay doono walaalkay isagana waa nin ahludiin ah oo aad u wanaagsan oo qiimo badan waxa kaliya uu ku xun yahay waxa ay tahay kaliya sigaarka ayuu cabaa wax dhibaato ma lahan wadanka oo idil waa laga wada cabaa insha Allah isagana uu ka hari doonaa waxaad u noqon doontaa gabadhiisu aad u jecel yahay waliba waxaan ku sii sheegayaa guriga ma joogta haba yaraatay wax gabar ah oo ku dhibi doona kula ficiltami doona noloshana ka ciriiri doona waa ninkaaga iyo aabihiis qofka soo saddexeeya imaan doono waa aniga oo mararka qaar idin soo martin doono Allah ku ilaaliyo gabadheedii arrinta iga aqbal aniga maskaxdeeda aad ayay u shaqaysay wax fara badan oo aan ku fikiri karna ma jirin maadaama waxaan ahay wax iska kadis ah rafaad fara badan aan ku jira meel xun oo nolosha aan lagu aamini karin aan ku noolahay cunno mararka qaarkood urtayna aan cuno meel la igu yeero diinta ayaa dadka lagu baraa laakiin diinlaawayaal ay joogaan noloshooda ay gacanta ugu jirto waxaan iska go'aansaday inaan ninkan iska guursado sheekhan aan aaminsanahay inuu yahay nin wanaagsan iska aamino waxaan ku iri waayahay macallinkaygiyo waan aqbalay hooyay aabba la hadal anigana aan maqlo hal keeno kadibna waan ogolahay waxa waqti lama qaadane 2 saac kadib waxa la keenay hooyada iyo aabahay waxaad moodaa waxaan inay yihiin wax hore loogu soo heshiiyay oo ah mar una dhaafiyo meelaha naga gashay habeenkiina waxa la ii hooyay gurigayga cusub halkaas waxa iga bilowday noloshayda cusub waxaan noqday gabar gurigeeda joogta oo dhaqanaysa ninkayga ma ahayn nin dabeecad ahaan aad u xun laakiin ma ahayn sidoo kale qof hadal badan oo su'aalo fara badan ku weydiinaya wuu yimaadaa in yar oo saaloona dhex marta bog inta kale iska aamusan yahay anigana quraanka ayaan iska akhristaa nasiib darradu sidaan hore u sheegaba waxaad moodaa had iyo gooraale meesha aan galabo inay iyaduna degan tahay god shaydaan oo horla ayaan haddana ku soo biiray qiyaastii markii aan ninkii wada nooleen 3 bilood waxaan dareemay inuu yahay ninka nin aan caadi ahayn ma arko isaga oo quraanka akhrinaya ma arko isaga oo tukanaya ma arko haba yaraatee wax diin ah oo ninkan ka muuqdo wuu soo daahaa wuu seexdaa wuu iska baxaa laakiin anigana ilaaha afka ay qabtay wax su'aalo weydiiyay haba yaraatee ma jirto markii aan muddo joogayaan waxaan go'aansaday ninka inaan noloshiisa ogaado waxaan ku warniyo sidaa tahay ma tukatid miya adiga kuma arag adoo guriga ku tukanaya intuu qoslay wuxuu ugu yiri nakeen walaashay isbitaalkan tagaynaa waan soo baaraa waxaan u malaynayaa inaan uur yeelatay markii aan isbitaalkii tagnaba waxaa la uur ayay leedahay waan yaabay wuxuu ugu yiri soo ma arkin in xoogaa maalmahan ay kugu bilowdeen fikir iyo inaad su'aalo isweydiiso ninkan siduu yahay maxaa ku dhacay maxaa ka qaldan waxaa lagu yaqaanaa gabdhaha yaryar ee ugubka ah markay uur yeeshaan sidaas ayay noqdaan arrintan waxaa ii sheegay aabahay laakiin isaga maxaa u weydii waysa aabahay halkaan aado isagaa kuu sheegi lahaa waxaan ku iri maxaa iga qoseeya aabaha su'aasha adaan ku weydiina adigana jawaabta ka rabaa aabaha waa aabahay ixtiraam ayuu naga mudan yahay intuu qoslo wuxuu ugu yiri masaajidkan ku tukadaa imaam ayaan ahay waxaan ku qasbanahay inaan kalaho habeenkiina soo daaho masaajidkan halkan kuma yaale magaalo kale ayuu ku yaalaa xaafad kale macnaha
aniga oo shakigay qaba maalin maalmaha ka mida waxaan su'aashii weydiiyey sodogay. waxaan ku yidhi aabbo, ninkayga ma tukado, kuma tukado guriga. markii aan su'aashii weydiiyeyna wuxuu igu yidhi masaajid ayaan imaam ka ahay. odaga intuu carooday aad u xanaaqay wuxuu isoo xusuusiyey dhibaatada iyo halista hooyada igu hayn jirtay. intuu istaagay ayuu wuxuu igu yidhi waan kaa xishoonayaa maahane, dharbaaxti ayaan daanka kaaga dhufan lahaa, dhulka ayaan kugula ridi lahaa, qoorta ayaan kaaga istaagi lahaa. qofaan akhlaaq lahaynaad aad tahay, wax edaba aan lahayn, nidaamna aadan soo baran. sidee ninkaaga waxaasoo su'aala u weydiin kartaa? sideese aniga inta iigu timaado waxa ii weydiin kartaa? waxaan ku yidhi raalli noqo aabbo, waan qaldamay, wax dambana kuma weydiin doono. ima weydii kartid ayuu yidhi. markii aan soo jeesta ayuu kab inta igu soo tuuray qoorta iga dhuftay. ilaa iyo hadda marka aan soo xasuusto qoorta waan taabtaa, xanuunka ay qabtay kabtaasi iyo xooggii ku jiray. markan waxaa igu soo baxday dhibaato kaloo hor leh. hooyaday waxaa ii beddelay sodogay. wuu iqcaayaa, wuu i aflagaadeeyaa, dhibaato ayuu ii geystaa. sidaasi ayaan isaga jiray aniga. hadafka iyo ujeedka aniga aan intaasi ugu dulqaadinayna waxay ahayd cunugan caloosha iigu jiro ilaahay i siiyey inuusan isagana dhibaatadii aniga igu dhacday oo kale ku dhicin. waan dhala nasiib wanaag, alxamdulilaah, ilaahay wuxuu i siiyey gabar. haddana ninkii intuu ii yimid ayuu salaad bilaabay, quraan akhris bilaabay, nin wanaagsan ii noqday. waxaan yeeshay uur kale, kadibna waan waayey ninkii. meel uu ka baxay inuu dhintay inuu nool yahay waan waayey. 9 bil markuu ninkii sii maqan yahay, markii aan aabbihii weydiiyana uu intaasoo dhibaato ii geysanayo, ayaa waxaan go'aan ku gaaray inaan cunugteedana la haado iska baxo. ha yeeshee ma rabo in yaraanteeda wixii aan soo sameeyey ee ahayd mar uun gurigan ka carar, halkaan aadani anigu aan ogeyn iska dhaqaaq, inaan sidii oo kale sameeyo. waxaan markaan go'aansaday inaan lacagta aan haysto qayb ka mida meel dhigto. wixii aan hore u uruursaday haddana aan sii uruursado. go'aankayga iyo hadafkaygu waxa uu ahaa 6 bil ee soo socota oo keliya inaan halkan ku dhibtoodo, kadibna aan isaga cararo. waxaan dhalay gabar kale anigoo 2 cunug haysta, lacagtii ii ururto ii diyaarsadeedna haysta. subaxa soo socota haddii alla idmana go'aankayga u yahay inaan dhaqaaqo, ayaa habeennimadii guriga waxaa nagu soo garaacay boolis oo aad u hubaysan. weligayna ana arag. waxaa la xiray ninkii, aniga iyo carruurtaydii. habeenkii waxaan ku barinay saldhigga. waaga markii uu baryey waxaa naloo soo waday maxkamadda. maxkamaddii markii la furay waxaa la aqriyay eedeymo fara badan oo loo haysta ninkaygii aabbihiis. waxaana sidoo kale arkay isaga oo garba duuban oo maxkamadda meel ka mida fadhiya. araggiisa ee muuqiisa markii aad aragta aad ka naxayso, aad mooddo tuugada ummadda dhacday inuu yahay. waxaa lagu eedeeyey inuu yahay daroogiiste qayb ka ah dhibaatada waddanka ka jirto. waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu la shaqeeyo qolo xubnaha jirka bini'aadamka ka ganacsata. dadka intay afduubtaan keliyaha, beerka iyo wadnaha kala baxaan. garsooruhu waxaa markii maxkamaddii bilaabatay uu yidhi gabadha hebla ah haba yaraatee wax dembiya ay meesha ku leedahay ma lahan, baaritaanadu wax ayaday ku leedahay ma lahan, laakiin keliya waxaan rabnay inaan iyadana ogaanno in jirkeeda uu ku jiro wax daroogaa si aan u xaqiijinno. baaritaankii lagu sameeyey wax haba waa laga waayey. sidaas daraaddeed bushra iyo 2deeda cunug waa fasax, maxkamaddu waa ka tegi kartaan. ninkaygii waxaa lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. aabbihiisna waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. waxaan ku soo dhacay bannaanka. guriga markii aan imidayna waxaa yimideen reerkiisii. reerka waxaa horboodaya ninka igu daray, sheekha iska dhigaya wadaadka ahaa. indhaha intuu igu guuy wuxuu yidhi musiibo kugu dhacday, balaaye qabtay ee hooyada ee aabbaha horey iigu sheegeen. taasu meel ay gashay oo lagu nastay, lagu liibaanay, horumarna lagu gaaray weligeed ma dhicine. sheekhow ma iska daysid, anaa ilaahay dartii kuu aqbalay. balaayadii aabbaha iyo hooyada iiga digeen maanta faraqa ayay igu jirtaa. kaal allaha kugu rido, meel alla meeshaa doonta carruurta la aad, horey u baxa. guriga intaan imaan ka hor way baarteen, lacagtii itiilla way qaateen. shilin ma haysto, waxbana ma haysto. waan soo laabtay, waxaan imid maxkamaddii, waxaana u sheegay dhibaatada ay haysataa. garsooruhu wuxuu igu yidhi halka shay aan kuu samayn karnaahu waxa uu yahay inaan ninka kaa furno. waan oggolaaday. sidii ayaana ninkii ku kala tagnay.
aniga iyo labadayda carruurood waxaan dib ugu laabannay noloshii darbijiifka. laakiin tan way ka xanuun badan tahay tii hore. maxaa yeelay tii hore anigu waan yaraa, caqli fiican ma lahayn, keligayna waa ahaa. waan weynahay, gabar ayaan nahay, 2 carruurana waan sitaa. qof haba yaraatay caawinaysaa ma jiro. aabbahay waxa uu igu yidhi, gabadhaydii aad tahay, waan ku jecelahay, laakiin waxba kuuma qaban karo. hooyaday waxay igu tiri, musiibo Allah kugu rido. adiga oo kaligaa ah ayaa indhaha ku saari waaya maanta oo ilmo islaameed aad sido, kuma rabo. waxa aan bilaabay inaan darbijiifkaygii dib ugu laabto. wax alla wixii aan waddada ka helna waan iska cunnaaniya carruurtaydii. war uma hayo caqligayginu ma dhammaystirna in cunnadan carruurta yar aan siinaya ay suuragal tahay inay ku sumoobaan. ma ogi, gabadhayda yar aan sito mar hore ayay dhimatay. waxaan u moodaa inay ii jiifto. habeenkii meelaan saga dhacnaa, maalintii waan iska hadaafnaa. waxaan maalinkii dambe ku soo baraarugay gabadhii oo sii cuslaanaysa, haba yaraatee wax dhaqaaq aan lahayn. haddii aan meel kasta fiiriyey, mar hore ayay dhimatay. cunug mayd ah ayaan 24 saac qiyaastii haystaa. waxaan u qaylo dhaamiyey booliiska. waxaa loo wacay aabbahay iyo hooyaday. cunugtaydiina waa la duugay. aniga iyo gabadha ii soo hartay waxa aan go'aan ku gaaray inaan meel weliba aan la geli kara la galo. nasiib wanaag waxaan helay maqaayad aan ka shaqaysto. alxamdulillaah, ilaaha iga sii khayr fara badan. shaqo fiican ayaan ka helay. aad ayuu ii jeclaaday ninkii. maalin weliba meesha waxaan ku aqriyaa qur'aan. waxa ay noqotay maqaayad caan ah oo aad loo jecel yahay, dadkuna ku soo wada cararaan. kastamarka iyo kalyantiga ay haysataan aad uu u badan yahay. ninkii wuu ii jeclaaday, wuxuuna igu yidhi, wanaaggaaga iyo qur'aankaada iyo khayrkaaga aad ila soo gashay darteed ilaahay wuu igu irsaaqay. sidaas daraaddeed waxaan qayb kaa siinayaa maqaayadda. waxaan qayb ka yeeshay maqaayaddii aan raashinka aniga u karinayay, alaabtan u dhaqaayay. hadda waxaan ahay maqaayaddii oo idil qof la wareegtay. maqaayad kalena leh, baabuur leh, nolol fiican samaysatay, guri iibsatay, gabadheediina kolleej ay u dhigato, u soo laabanayso, u caafimaad qabta. alxamdulillaah. hadafka iyo ujeedka aan ka lahaa sheekadan inaan idiin sheegana waxay ahayd in ay suuragal tahay ilmo yar oo waalidku inta dhibaateeyaan halistan loo gaarsiiyo. hadafkii ujeedkaygu waxa uu ahaa in gabdhaha aniga ila midka ah aysan nolosha ka quusan, maadaama dhibaatada aan soo maray oo kale ee yartaa cidda soo martay. hadafkii ujeedkaygu waxa uu ahaa qof weliba oo sheekadani dhegaysta inuu ilaahay uga boqo carruurta ammaanada ah ilaahay siiyey. ha dayicin carruur ilaahay ku siiyey. waxaa maanta jira kumanaan qof oo habeen iyo maalin u ooya inay ilmahaasi helaan. adiga oo ilaahay ku siiyana ilaahay uga baq.